15 bisha toddobaad 2020 waxaa bartay shirkadan haatan lagu magacaabo X horena loo oran jiray Twitter loo geystay dhac bahsan waxaana soo weeraray barta shirkadan ay leedahay rag scammers ah iyagoo maamulka bartanita haatan lagu magacaabo X muddo dhowr daqiiqo ah gacanta ku hayay waxa scammerska bartan haatan lagu magacaabo X soo weeraray ay sameeyeen in page dadyo caan marka ay ku leeyeen bartan haatan lagu magacaabo X oo ay ka mid yihiin Elon Musk iyo madaxweynaha dalkaas Mareykanka Joe Biden ay ku daabaceen warbixin isku mid ah sidana marka uu qorneed waxaad ii soo dirtaa lacag dhan $1,000 waxaan kugu soo celin doonaa lacagtaada muddo 30 daqiiqo gudahood waliba anigoo kaaga soo dhigi doona lacag $2,000 ah ana marka sidoo kale ay sameeyeen in boostida marka ay share gareeyeen raggan scammerska hoosta marka ay kaga daabaceen ciwaanka marka lacagta loogu diri karo muddo dhowr daqiiqo ah oo marka awood ay ku haysteen raggaas scammerska bartan haatan lagu magacaabo X ama hore loo oran jiray Twitter qaabka marka si loo xaliyay waxaan ku faaqidi doonaa muuqaalkan balse intaan ugu gudagelin muuqaalka marka waxa ku xusuusinaa in muuqaalkan inta alla gareeso siina share gareeso haddii aadan ka mid ahayn bahweynta nagu xirna inaad nagu soo birto waad ku maasantaa waqtiga ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aanu gudagalno muuqaalkeena maanta falkan qalqalgelinta scammerka ah laguna weeraray bartan haatan lagu magacaabo X horena loo oran jiray Twitter sanadii 2020 waxa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay wiilkan dhalinyarada ee horteenana ka muuqda laguna magacaabo Graham Evan Clarke waxaan wiilkan dhalinyarada xilligaas ay falkan u geysanay uu jiray da'ad ahaan 17 sano wiilkan waxa marka uu dhiganayay iskuul sare oo lagu magacaabo Gator High School waxaana marka uu ku noolaa goob marka sidii lagu magacaabo Tampa kana tirsan gobolka City Florida ee dalka City Mareykanka Graham wiilkan dhalinyarada noloshiisa inta badan waxa marka uu ku qaatay kelinimo guriga in marka kaliga uu ku noolaado maadaama hooyadiis inta badan marka ay ku maqnayd goobaha shaqada si marka noloshooda ay u dabarto Graham waxa uu noqday mid aad uga fogaado ciyaaraha gaming-ka ee online-ka lagu ciyaaro waxaana jirta xiisaha uu qabo iyo waqtiga tirada badan marka uu ku bixinayo isaga marka dheelayo ciyaarahan gaming-ka online-ka lagu dheelo waxa jirta in baraha bulshada sida YouTube iyo Twitter ciwaano marka uu ka furto waxaana wiilkan dhalinyarada marka ciwaanada baraha bulshada uu ku leeyahay uu soo gelin jiray fiidiyoyo iska soo duubay isagoo marka ciyaarayo ciyaarahaas gaming-ka ee online-ka lagu dheelo ciyaarta inta badan aadka marka uu dheeli jiray ee online-ka marka lagu ciyaaro fiidiyoodu iska soo duuban baraha bulshada marka uu soo gelin jiray waxay ahayd ciyaartan gaming-ka ee online-ka lagu dheelo laguna magacaabo Minecraft waxaana jirta taageerayaal badan oo xiiseynaya darteed ciyaarahan marka Minecraft-ga in barihiisa bulshada marka ay ku soo xirmaan maadaama waqti badan uu ku qaatay ciyaaraan online gameska ciyaaristooda wiilkan lagu magacaabo Graham ciyaarta sida gaarka uu ciyaar jiray inta badan laguna magacaabo Minecraft waxa jirta horumar in marka uu ka sameeyay waxaana jirta taageerayaashiisa iyo dadka kale marka doonaya in marka si ay ka iibsadaan xirmooyin Minecraft si akoonadooda marka ay ugu horumarsadaan waxa marka uu sheegi jiray dadkaas in marka xirmooyinka uu ka iibin karo haddii lacagaha marka si isaga u soo dirsadaan waxaana jirta lacagaha marka si u soo dirsadaan dadka marka doonaya in wiilkan marka ay ka iibsadaan xirmo Minecraft ah in marka lacagahaas dadka marka uu kaga qaadan jiray isagoona marka dadka waxba aanan ka iibinaynin ficilada wiilkan uu sameynayo oo ah in kaliya marka sida dadka lacagaha uu ka qaato si been abuur ah waxa jirta YouTuber digniina marka ka bixiyay ayagoona marka dadka u sheegayo wiilkan dhalinyarada waxa marka uu sameynayo kaliya marka inay taa ujeedadiisa in dadka lacaga marka uu ka qaato isagoona marka waxba aanan ka iibinaynin wiilkan lagu magacaabo Graham wuxuu isku tusay falkan xatooynimada scammerka uu sameynayo in marka ay taa wadada kaliya ee dib la'aan hanti badan uu ku tabci karo cid walba hanti haysatan marka uu ugaarsado qaab marka si xatooyin uu kula kaco si hantidooda gibi ahaanba marka uu la wareego Graham oo ay heliyaan laba scammers ah waxa mashruucooda ugu weynaa ee ugu horeeyay xatooyin marka ay kula kaceen 15 bisha 4 2019 ninkan hantiilaha ah ee lagu magacaabo Greg waxaana marka akoonadiisa ay hakin gareeyeen iyagoo marka si ka qaatay lacag dhan $1 milyan oo Bitcoin ah falalka dhacay iyo burcadnimada internetka marka laga soo tago waxyaabaha kale lagu tuhmay Graham waxa kamid ah inuu qayb ka yahay sidoo kale ka ganacsiga maandooriyaha waxaana jirtay xitaa in Graham mar booliska ay xireen 2019 maadaama booliska xilligaas marka ay soo dabagaleen fal burcadnimo ah oo saaxiibkiis wiilkan lagu magacaabo Graham uu ku geeriyooday Graham wali waxa marka uu sii waday waxyaabaha qalqalgelinta iyo burcadnimada waxyaabaha uu sameynayo waxaana xilligaas ku dhiirigelinay falalkan fooshi xun wiilkan uu sameynayo maadaama da'adahan uu ka yaray 18 sano waxaana jira sharci Mareykanka ka degsan oo ah haddii qofku marka uu ka yar yahay 18 sano in kiisaska dambiyada waxyaabo markaas lagu qabto maxkamad aan la wajihi karin 15 bisha toddobaad 2020 ninkan lagu magacaabo Graham waxa marka uu sameeyay mishinkiisa labaad oo ah markaas in qalqalgelin marka uu sameeyo maadaama waxyaabahan marka uu caadeystay internetka scammerka uu sameynayo waxaana falkan ku caawinay wiil kale oo markaas da'ad ahaan isaga marka ka yar xilliga 17 sano maadaama uu jiray 2 sano page rag caan markaas ay ka mid yihiin ay leeyihiin sida Elon Musk madaxweynaha Mareykanka ee hadda Joe Biden Barack Obama in marka iyo page kale lagu soo daabacay
warbixin isku mid ah sidaana markaasayta u dhignayd waxaad ii soo dirtaa lacag dhan $1,000 waxaan kugu soo celin doonaa lacagtaada muddo 30 daqiiqo gudahood weliba anigoo kaaga soo dhigi doona lacag $2,000 ah waxaana markaa sidoo kale ay sameeyeen in boostiyada marka ay sheergareeyeen raggan scammerska hoosta marka ay kaga daabaceen ciwaanka marka lacagta loogu diri karo dhalinyaradan falka qalqalgelinta ku sameysay bartan haatan lagu magacaabo X horna loo oran jiray Twitter mishinkooda sida ay doonayeen ugu maysan guuleysanin maadaama beejidka xataa warbixinada ay ku sheergareeyeen ay leeyihiin dad yowcaan ah hanti badanna markaa haysta baahi u qaban karta dadka lacag in marka ay weydiistaanna meesha aysan jirinba waxaana jirta dadyowga inta badan markaasayta inay u fahmeen beejidkaasayta dadyowga caanka marka ay leeyihiin warbixinada lagu sheergareeyey in marka ay ka dambeeyaan scammer si qaladan warbixinada beejidkaasayta dadyowga marka caanka ay ku leeyihiin bartan haatan lagu magacaabo X horna loo oran jiray Twitter in si qalada marka loo soo dhigay iska caabin ay kala kulmeen labadan dhalinyaro ee jabsatay bartan haatan lagu magacaabo X horna loo oran jiray Twitter waxa ugu dambeyn suurto gashay in labadan dhalinyaro maamulka mareegtadanayta Twitter ama X in gacantooda dib marka looga celiyo waxaana jirta in falka marka labadan dhalinyaro ay sameeyeen halkaas marka aan lagaga harin baaritaano iyo dabagal marka lagu sii sameeyeen FBI-da Mareykanka in uu suurto gashay in ugu dambeyn gacanta marka ay ku soo dhigto taariikhdu markii mareysay 31 bishii 7 2020 labadan dhalinyaro ay jabsatay bartan lagu magacaabo X waxaana jirta in xabsiga markaas loo gudbiyay si marka maxkamadda ay wajahaan go'aanka waxa xukunkooda marka uu noqonayo